legend haddaa maqashay waa hal sidaa ogtihiinba waxaa daawateen inta badan waa ku xirantihiin youtube asad xaajiyo dabcan asad xaajiyo waa safar waxa uu safri doonaa lama yaqaan meeshuu aadi doono balse gabdhaha ayuu wuxuu dhex dhigay haddii qofkii ku guuleysto in uu kaxeey doono safarkiisana ee qaybka ka noqon doonto sida caadiyan ahaa tartanka ayuu u qabtay gabdhihii waxaa ku guuleystay mrs canada oo xaq u yeelatay in la raacdo asad xaajiyo balse gabdhaha markii hore waxay doorbidayeen in ay raacaan asad meesha uu aadayo si ay farxadooda ugula qaybsadaan haddaba sharciga shuruuda ayaa ah geemka cidda kaliya ay ku guuleysato in ay baxayso oo aana shuruuda geemka aan laga bixi karin balse haddii aad isla garataan oo aad sii karto inaad dhigi kartid adiga ayaa bixi doono oo adiga ayaan raaci doono waa adiga joyskaada iyo qofkay ku xiran tahay sida caadiyan ahaa gabdhihii waa uu ku soo laabtay waxaana u sheegay in ay dhammaantooda ay israaci doonaan bal emotionkan ila daawada qaabka ugu sheegayo iyo sida ay noqonayaan dhammaantoodaba ما أنسميه waa geemkii ugu calool xumaa ee aan sameeyo waa geemkii ugu muruga badnaa in aan sameeyo anyway sa ogeedee Mrs Canada ayaa guuleysatay oo muuqaalkan waa kala jari doonaa oo laba ayaa kala dhigi doonaa gabdhahan aad bay ii dareen bedeleen sababtan wax kale maana waxay ii muujiyeen in ay i jeceliin sababta ay u oonayeen ama sababta emotional u noqonayeen ma ahna inay badiyaan kaliya ama ma aan wax kale oo waxa waaye oo waxay jeceliin oo aniga baan jecelnahay in يعني الاسخراح هيستو ولا باشالو او ولبنا نولشين سيده اهد اني سي سوقto على كل حال gudaha gali doona kadibna waxaan weydiin doonaa qof walba dareenkiisa kadibna waxaan u sheegi doonaa oo aan u hambaleen doonaa inaan is wada raaceen Little sad eyes, don't you cry 'cause you know sad eyes. Love will come, love will go. And when you're strong, you never ask why. But can you learn to love your weakest side? Little sad eyes. على فاي waxaan saacidin shay boo game way hay adigana dareenkaaga soo aha هذا هو فرح صناعي إنا مودستي إنا نبتغسدنا حنونا نقطع مفعلتي. If the hurt is all in vain, but you'll get through. oo sawa feeling kaaga horta wallahi feelingkay malso koobi karo maadaama aan gabdho oo walaalo ah isbarane wax badan isla soo shaqeynay kala tageyno xanuunka ugu weyn ana wallahi hadda bixitaanka dhan hadda niideeda kuma jirto sababtoo ah waxa ka tago walaaleyga asoo jacalna mar walba soo walaashana بس عادي دم ما لها انا مع عمي نعدي ولا لي كتب المحاوي ورسولك على راعي دم ما لها على كل حال halkaas soo gabagabeen doona geemka oo hee maanta waa bixina wallahi waa wada bixina surprise oh my god no way والله waa bixina إن شاء الله مال مكلارين إن شاء الله وهو سفرنا أو هي وقراحتنا وهو باشالنا let's go وهو بحنا أو وين بلا هي وهو صوت دماشالنا no way بارسلا ولا تور دونا أو هي خوف كليس يا خالنا هذا بل في هذا سلاسل وإسكو هم بليين خوف كله وكفر حي إنا وضع بحنا قوان دق يا خاتي زائد على شيء ورسي جايس والله وحان أيو يعني بانكيga isku bedelay oo bariya shakisay ka soo bixeen ma aragtay asad markuu waxyaabaha xamad sameeyo wadna xanuunka
وحلو سمير ومائدي لا أرجع كلها بوفينك أو دكتور سوق كذا وحقول إيه مائد وحصل صعده صح أنت ما وجي أنا فيني وحقول أسد وحسود وحرمان أنا وليك فاهم أنا مكان فهمين أنا وامرك سنين لكن وحاسس sababta ay shay horta gameka shaxdiisa rasmigiisa wuxuu ahaa hal qof kaliya aan idin wado laakiin gameka markaa sameeyeen yani zaid ay dareen bedesheen sababtaas go'aankeeda aan ku qaatay inaan kala tagin absolutely legend of the legend kaliya waxa fahmi kareeto qofka wax garadka ah dabcan gabdhahan gabadha maskada kaliya way xaladahay kaliya inaan ku maanta moral u nahay asxaabtii wixii ka tagaysan muuqaalada u dambeeyay asxaajiyo waxay ahaayeen gabdhahan dareenkay muujinayeen iyo asigaba dareenkay muujinayeen waxay ahaayeen wax kaleeto qofkii oo dameer lehne uu dareemi karaa sababtoo qofkii gabadha dhalatan wuu waa karaa aniga ahaanteed aad ugu xirnaa muuqaalada asad oo soo dhigay Soomaaliya ku joogay waliba Malaysia ku joogay waa nin aad u taageero laakiin qaab dhaqanka gabdhahan oo la dhaqmay waxay ahaayeen wax aad u wanaagsan wax aan la soo koobi karin aan lagu qiyaasi karin hadal aan lagu koobi karin kalaam dheer ah haddaan dhaho wax badan aan sheegaya waxaa laga yaabaa inuu waagaa meesha ku barasiiyo taas waa aan u soo qaatay muuqaalkan waana awoodo muuqaalada kale waan duubay xitaa laakiin waqtigan u waayna soo dhigo iyo waran idinku daalinayna legend muuqaal qiiro badan waaye muuqaal dareenkiisa aad u kacsan yahay waaye waa kamid ah muuqaalada aan ugu jeclaa oo kamid yahay waxaan leeyahay dhammaantood hambali aan leeyahay sababtoo waa lasoo jabhadeyseen waqti badan aa geliseen juhdi badan aa geliseen dadaalkiina halkaa ku imaaday gabdhayaal waa hubaal mustaqbal ifaa samaysan doontaan waxyaabaha ii gadnaa waxay ahaayeen in gabdhahan reerkooda la wacaayo lagu dhahayo gabadhaada inay raacdo diyaar muu tahay hooyo iyo aababo walow inta badan hooyooyinka ay wacayeen laakiin ay dhahayeen annaga haddaan kugu aaminin yaa kale ku aaminayna absolutely hadalkaas ayaa ah midka ugu ftaa oo qurux badan in gabdha lagu aamino still oo gabdhihii haddana u ballan qaadin oo kaxinaya yaa laga helaa so haddii intaa la joogto waa ku mahadsan tahay la joogaaga walaashii waxaan kaa codsanayaa inaa youtube-kan subscribe inoo dhahdo like-na aan la dhaafin share-kana aan la dhaafin iga codsi halkaa waxaan gaari doonaa waxaan ku soo dhownahay 10,000 gaarno taas idinkaana gaarsii kareeto maxsanadeen